su-aashaan ku weydiinaya waxa weyn si ma laga yaabaa in somaliland uu ka dhaco civil war maadaama ay qabiilo dhexdooda ay isku ximinayaan xukunka somaliland yes طبعا waa ka dhici karaa because waxa weeyaan somaliland qabiilo ku dhisan tahay qabiiladuna hadii ay wada hadli waayeen oo kursiga la wada fadhiisan waayo wixii jira la isweydiin waayo oo la ignore gareeyo waxa ku damaynaysa ma taqaan arrintaas xumaanaysa waxayna ku damaynaysaa civil war ku damaynaysa marka waxa uu haboon inay intay waqti yahay inay wada fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan wax dhibaato jira bari galbeed iyo dhexdhexaadba haddii oo somaliland ay u diiday inay xukun ka qayb galaan dhulbaantaha iyo gudurbiirsaha maxay kula tahay aragtidaada taas macnaheedu waxa weeyar ma taqaanaa wax somaliland la yiraahdo waa ma gaari maayo marka somaliland waxa ma noqonayso wax jirtoona ma noqonayso without dhulmaanta iyo gudurbiirsa aan waa fikradeeda weey ma hasan